jirdilkii ka soo gaadhay booliiska Somaliland ay jir dileen suldaanku jug weyn baa loo geystay suldaanka ku xidhan Baki runtii aad buu cabanayaa ka ku xidhan meeshu aad bay u fog tahay way dhibaato badantay wallahi waan ka naxay jidka marka soo marayay taa qudheedu kaliya dhibaato leh Suldaan Ibrahim Suldaan Sulub gurigiisa xawaadlo ku yaala ayaa laga soo xidhay isagoo ka soo baxay rajaynaa inaan mar labaad halkan aan ku soo booqanay in xurriyadooda loo soo celiyo waxaan maanta soo siyaaranay maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa iyo suldaankii ku xidhnaa waad hadashay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta xabsi ku yaala degmada Baki ee gobolka Awdal ku booqday siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo Suldaan Ibrahim Suldaan Sulub oo halkaasi muddooyinkii u dambeeyay ku xidhnaa gudoomiye Faysal Cali Waraabe waxaa booqashadan ku wehelinayay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga ucid ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha abaabulka ee xisbiga Maxamed Xuseen gudoomiyaha xisbiga ucid ee gobolka Awdal Cabdirashiid Ibrahim Isaaq gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Ismaaciil Maxamed Jaamac iyo mas'uuliyiin kale maanta waxaan magaalada Baki ee xarunta degmada Baki ku soo dhaweynay wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Xuseen waxaan leenahay ku soo dhawow degmada Baki maanta waxaan ku suganay degmada Baki gobolka Awdal waxaan u nimid wafdiga hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga ucid inaan soo booqano maxaabiistii mucaaradka ahaa lagu xirxiray halkan ku xidhan iyo Suldaan Ibrahim Suldaan Sulub waxaanu nimid meel aad u fog oo inta Hargeysa laga soo xidhay halkan la keenay oo taabaabada iyadu qudheedu dhibaato kala ku soo kordhisay caafimaadkoodu dhimaan wanaagsan yahay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka oo ay aad uga mahadnaqayeen maxaabiistu gaar ahaan Suldaan Ibrahim Suldaan Sulub gurigiisa xawaadlo ku yaala ayaa laga soo xidhay isagoo ka soo baxay waxaan ugu yimid balnaan xaaladiisa aan eego marka xaaladiisuna maanta aad bay u fiicantay insha Allah isagii maxaabiista kala xidhan waxaan rajaynaynaa inaan mar labaad halkan aan ku soo booqanay in xurriyadooda loo soo celiyo waxaan runtii aan u nimid maxaabiista ku xidhan siyaasadda u xidhan barnaamijii lagu soo xidhay ee la keenay degmada Baki jeelka ku yaala runtii xaaladooda caafimaad way wanaagsan tahay inkastoo ragga qaarkood caafimaad ahaan ay u cabanayaan jirdilkii ka soo gaadhay booliiska Somaliland ay jir dileen suldaanku jug weyn baa loo geystay suldaanka ku xidhan Baki runtii aad buu cabanayaa isla markaa waxaan leenahay booliisku tacadiyada hadda ayaan dadku waa dadkoogii haddii la banaanbaxayo si salmiya loo banaanbaxay laakiin runtii maxaabiista halkaa ku xidhani waxaan uga mahad celinaynaa taliyaha iyo dhammaan askarta asluubta ee Baki jooga iyo dadweynaha reer Baki oo runtii dad wanaagsan oo sharaf leh oo runtii ka warhaya maxaabiista walaalahooda ee degmada Baki la keenay annagoo ah wafdi ka socda xisbiga ucid uu hogaaminayo gudoomiyaha Faysal Cali Xuseen waxaanu nimid magaalada Baki Central jeelka weyn waxaanu ku soo siyaaranay niman badan oo u xidhan siyaasad iyo Suldaan Ibrahim oo isna ku jira meesha xaaladooda caafimaad aad iyo aad bay wanaagsaneyd xoolo qadar bay leeyeen wax weeyaan Baki inaanu nimaadno maanta waxa keenay meesha la keenay nimanka ku xidhan meeshu aad bay u fog tahay way dhibaato badantay wallahi waan ka naxay jidka marka soo marayay taa qudheedu kaliya dhibaato leh iyo dadkii oo aanu iman kareen dadkoodii aad iyo aad baan uga xonnay magaalaanu ku soo noqonno magaalaanu baranay maasha Allah weeye dadkooduna wanaagsan yihiin waxay noo sheegeen magaaladu inay khudaarta u keento oo caanaha u keenaan oo wax walba u keenaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deegaanka iyo Baki ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe ay u sheegeen waxaan maanta soo siyaaranay maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa iyo suldaankii
ku xidhnaa waad hadashay caafimaadkooda aad buu fiican yahay suldaanka inkastoo uu ka cabanayo nabare soo gaadhay markuu xidhnaa station booliiska oo u baahan yihiin in caafimaad la tuso sida kale alxamdulilah dadka deegaanka ay deganaa laga soo fogeeyey moojaane laakiin meesha la keenay Baki waana magaalo qurux badan oo cagaaran oo dad wanaagsan oo aad u fiican joogaan waxa markaan leenahay way fog tahay waxa la sheegayaa un dadkii wax u keen lahaa ehelka in baa laga hadlayaa laakiin meesha meel Ilaahay lagu sugaa way alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacabka reer Baki iyo madaxda ciidamada asluubka iyo askarta baan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka waxa weeyaan waa isqabanaya laakiin yaan cadaawad iyo xiqdi la isku abuurin waa siyaasaddu maalmo heer bay taagan tahay laakiin waa laga ilaaliyaa in dadku isnaco cadaawad isku qaado taasna ma lahaan jirin magaranaysaa dhaqankana maaha siyaasadda ra'yiga baa lagu kala duwanaadaa cadaawad amba isir ku xidhan amba qabiil ku xidhan amba ra'yi ku xidhan ideology ma jiro siyaasiyiintan iyo suldaankan xidhan ilaa hadda wax maxkamad ah lama soo taagin waxaana ay ku xidhan yihiin xabsi 100 kilomitir u jira halkii laga xidhay oo ahayd Hargeysa maxamed midh qorsame